السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa EBC News Now. dawladda ku soo dhawaada war degdeg ah oo hadda soo gaaray. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo isagu hawada ka maqnaa maalmahan oo warkiisa la la'aa isla markaana ay ku jahwareersanaayeen dhammaan madaxda Geeska Afrika iyo Bariga Dhexe ayaa maanta warbixin kooban laga helay isla markaana uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga. madaxweynuhu waxa uu shacabkiisa ka soo salaamay barta social media Facebook-ga wuxuuna u soo qoray fariintan. waxa uu yidhi shacabkayga Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta oo ay joogaan waxa aan u soo dirayaa salaan iyo bogaadin aniga oo u rajaynaya khayr nabad iyo barwaaqo. fariinta uu madaxweynuhu soo diray shacabka ayaa waxaa la socday sawirada halkan aad ku arkaysaan isagoo markaasi diyaarad helicoptera raacaya madaxweynuhu. balse waxa ilaa hadda su-aal isweydiin ah halka uu joogo. cid ka war haysa ama cid sheegi karta barta uu joogaa waa ay adag tahay. waa arrimaha diblomaasiyadda casriga ah ee kusoo kordhay bariga Afrika. madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro marka ugu dambeeya waxay sheegayeen in markaasi uu ka qayb geli doono shirka dhaqaalaha adduunka ee ka socda Switzerland. halkaasi oo ay isugu imanayaan hogaamiyaasha iyo madaxweynayaasha caalamka oo dhan oo halkaasi markaasi ay fursad u tahay madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro inuu markaasi ka dhaadhiciyo qadiyadiisa aqoonsiga Somaliland ee uu wado. wadamo badan oo halkaasi markaasi isugu iman doona. sidoo kale waxa kale oo madaxweynuhu wataa qorshayaal kale oo markaasi ku saabsan in Somaliland ay tahay meel amni ah oo markaasi isku halayn karo oona maalgashi lagu samayn karo dalka gudaha Somaliland isagoo suuq geynaya khayraadka rasmiga ah ee Somaliland ay haysato isla markaana caalamka u bandhigaya barta Somaliland ay ku taalo ee istiraatiijiyadda ah ee muhiimka ah. madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxa uu soo hooyay guulooyin waaweyn oo diblomaasiyadeed dalka Somaliland. shacabka Somalilandna aad ayay ula dhacsan yihiin waa ayna ku faraxsan yihiin. haddaba wixii warbixin dheeraada ee markaasi ka soo kordha safarka madaxweynaha uu ku maqan yahay wixii war aanu ka helno dib ayaanu idinkala soo socodsiin doonaa. balse imika warka hadda aanu haynaa waa intaasi. waxay u badan tahay inuu markaasi ku sugan yahay dalka Switzerland. dowladda Somaliland ayaa iyadu ilaa imika wax war ah oo saxa xaqiiq ah oo ku saabsan madaxweynaha Somaliland kama ay soo saarin. wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayeen in madaxweynuhu uu ku sugnaa dalka Israa'iil iyo dalka Imaaraadka. labada wariba waa ay istaba barbar cararayeen balse cid xaqiijin karta halka uu madaxweynuhu ku sugnaa ma jirto. waa tahay dawadayaal warkaa degdeg ah intaa ayuu naga dhan yahay. wixii wararka ka soo kordhaa madaxweynaha warkiisa dib ayaan idinka soo sheegi doonaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.